waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb afraad oo ka mid ah hiddaha ergada iyo ergeynta. dhegaystayaal barnaamijyadii halkan ka baxay toddobaadadii aynu soo dhaafnay qaarkood sidaan ku soo sheegay haddii aan la waayin waxaa erga walba hormari jiray gabyaacana iyada oo la rumaysnaa xaqa ay ku raad joogaan in qolada ka haysa uu aftahamadiisa kaga soo dhirindhirin karo. maanseyahanadii waaweynaa ee ergeeyey gabayada lama ilaawaanka ahna hawshoodii ku waariyey waxaa ka mid ahaa cali dhuuxoo in doora oo maansadiisa ah ay soomaalidu dhab u taqaan sidaa darteedna ka deeqtoon inaan halkan waayihiisii idinkugu muxuu haddaba cali dhuux ka ergeeyey goorma ayay ahayd gabaygii oo arrintaa ka mariyeyse kumuu ahaa hor iyo horaanba goortu waxay ku aadan tahay sannadihii u dhexeeyey kii ilaa kii waa daraawiishtii sayid maxamed xilligii ay ku jabtay gacmaha gumaysigii ingiriiska iyo soomaalidii la jaalka ahayd ee uu askarta ka dhigin jiray dil iyo dhacba waa saraakiishii gumaysigu xilligii ay xalaaleeyeen dibindaabyada ciddii ururka beri ka tirsanayd ciddii jeer garabka u noqotay iyo tii loo malaynayay inay weli niyadda ku hayso intaba waa ceeshooda xilligii la sumeeyeyoo waa goodiga nugaaleed xilligii inta gumaysigu ku soo fiday uu ka sameeyey maamuladii degdega ahaa ee si loo qabjabiyo geyigii lahantay iyo uunkii ku noolaaba gacanta birta ah ee aan sharciga cuskanayn lagu dhaqi jiray si kale kuma garatide waa ismaaciil mire xilligii uu marin jiray gabaygiisi caanka noqday ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado. sanad haddaba ka mid a sannadaha dhibta badnaa ayaa waxaa been isku urursatay degmo jabkii daraawiisheed ka soo doogtay oo markaa tacab xooraad oo hor leh ku hawlanayd. maalintii dambe iyaga oo baraadla ayaa waxaa ku soo dhiiraday koox dabata ah taasoo ku guulaysatay inay ka qaado geel tiro yar tuldo caafimaad ahaan aan fayoobayn xoro oo idinlah ay iyagaa ka lahaayeen. cudud ahaan kooxdaas iyada ahi geelaas inay haysataa suuragal uma ahayn sidaa darteed bay ula galeen reere ay filayeen inay ku haysan karaan degaan ahaanna ay markoodii horeba wadataal ahaayeen. cali dhuux oo ka mid ahaa degmadaa la dhacay ayaa geelaa ka ergeeyey. hase ahaatee kooxdii qaaday ma uu abbaarine wuxuu dul fadhiistay kuwii magangeliyey ee ay sarsarkooda ku jireen. markaas bay isaga iyo raggii la socday waxay odayadii reeraha u soo bandhigeen gartoodii oo daldalool oo idil ay ka dhowreen. nasiib darro lagama hoos qaadina warkoodii waa la fududayst. waxaa lagu yidhi nimanka aad leedihiin xoolay naga soo dhaceen waannu garanaynaa iyaga oo geela wata ayayna mareen in dhaweydse isku degaanba ma aanu ahayn. kolka erge yahay hadda iska noqda oo wuxuun baanu ka soo celine annaga naga warsuga. jawaabtaasi cali dhuux iyo raggiisii kama ay daadegin. cayaayir hadal inay tahay ayay u qaateen maxaa yeelay waxay ogaayeen geelu inuu dhow yahay inaan weli la qaybsane goor aan fogeyn in la saanyado loo ballansan yahay islamarkaasna kooxdii soo qaaday iyo kuwii loola soo galay labaduba ka saami qaadashadiisa ay u sinaan doonaan. weligeedba sidaas oo kale markay xaajadu u soo oodanto ayaa aftahamada ergada loo baahan jiray soo inuu gabyaa cali dhuux lama soo gudboonaan. maalintaas buu geedkii shirkooda inta ka dhex istaagay wuxuu tiriyey gabay garnaqsi ahoo 14 qodob ka kooban. wuxuu ku bilaabay qodobo ay ka mid yihiin bal horta ka talinta arrintooda inaan dhallinyarada lagu sii dayna waayeelka loo daayo. marka labaadna tan iyo gugii gobaysane ee uu isagu dhashay inaanay jirin wax godob ah oo labadooda qolo ay kala galeen. marka saddexaadna in haddii ay wax ku sheegtaan uu diyaar la yahay goobta la joogo inuu ku gudo. marka afraadna inaysan iyagu geela ka soo qaadine loola soo galay sidaa darteedna aysan u ekayn eeddiisa inay iyagu dhabarka u ritaan. wuxuu yidhi 14 haloo wada gudho ah geela igu siiya. ninku yidhi garaadkii ba'yuu waa gafaataroe garku hadduusan marin ee bahay gebi ka sii qaadiye waa yeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxshaa tii garaadda ahee halgabaday nin uunbaa gartee geela igu siiya. teer iyo gobaysane anoo gabanahoo wiila labadeenna qoloba ayan gelin xaajo godobeede iyadana ha garan waayine
geela igu siiya gati eebo iyo daab ablay gudubna waaqaane cara guura oo gudimo noo sheegta guddi baan u saaraya wixii geedka iga raaca inaan galabta gegidaa dhigaa igu gar weeyaane gaagisa waa xun tahay xaajadii garasho weydaaye waxba haddaydinan igu gudbayn geela igu siiya gablamooyinow ma aydun dhicin idinku goodwiile tuukugu gabraaranahaya ya kuula soo garaya iyadana ha garan waayine geela igu siiya taasi kuma fille weli waa inuu dabeebtaa ragga uu la hadlaayo ee uu geela ka doonayo waa inuu u qaraabo sheegtaa waa reer abtigiise waa inuu xusuustooda ku soo celiyaa inay iyagu dhaleenoo ashkira oo hooyadiisihi ay guryahooda ka soo jeedo hadday taas ugu soo loodsami waayaanna waa inuu ku cabsi geliyaa isaga ma ahe inay jiraan 4 rag ahoo isla reerahooda ku abtirsada hooyadiisna ay isaga dabadii dhashay waa rag degaankoodu dhow yahay lana sheegay inay cara wada digsiisay gaar ahaan maxamed cumaroo weer caddi madaxa ugu xiran yahay tan iyo maalintuu maqlay walaalkii cali dhuux oo dhacani inuu degmada gees kaga jiro mar kale waa inuu dareenkooda ku ridaa haddii halahaas tirada yar tayadana xun ay haysadkooda ku adkaystaan inay eedi doonaanoo hareerada iyo horweynka xeryaha uga buuxa ay salfan doonaan mar kale waa inuu gartiisa ku xoojiyaa geela uu ergadiisa yahay haddaan la siinin inuu tirin doono gabay colaadeedkii lagu yaqiin dabadeedna ay goobo ba'ani xigi doonaan waa inuu dareensiiyaa in badanba ha ka maqnaatee ninna inaanu godob nin kale weligiis ku badbaadi karin wuxuu yidhi gaadh iyo barkimo reerahay gogoshu ii tiireen nimay gabadhi keentaan ahee geela igu siiya 4 inagolyaad oo gudboon yaan gelbinayaayo geeddayna igu raacayaan guluf colaadeede geelaashihii maxamed cumar xiray gambool weyne intaanan gaarin gowgaa ilaal geela iyo celiya halaha golaha muluxsan ee gindigu laastay nimanbaabay guuye u yihiin gaajanuu qabaye goolka iyo qaalmaha gorshiya rimada gawdiidda sidii galow haruur bay u guran guuto cayriye iyadana ha garan waayinee geela igu siiya guboo kale haddii aan tirsoo qoladii guubaabsho nimay guuli raacdaba wallaa laysu gelayaaye gudubtayda lama haysan karo maalin gelinkeede iyadana ha garan waayinee geela igu siiya inkastoo guyaal iyo guyaal godobi kaa raagto marunbay dakana soo gashaa gacantii oodnayde iyadana ha garan waayine geela igu siiya dacwigaas ku larayaa 2 qodob oo gundhig uga dhigay midi waa inuu ka soo jeedo reere aan laga maarmi karin oo abaalkii loo galo beri ka maalin gudi kara taasoo ay ergadoodu ku mudan tahay in loo tixgeliyo midda kale in loo sheego war cad oo ku saabsan in geela ay doonayaan isla maalintaa gacanta loo soo geliyo amaba si caddaana loogu diido wuxuu diidayaa labaclabacda iyo waagii baryaba naga war dhowra in lagu maaweeliyo markaasuu yidhi guntaan ahay lagama maarmi karo maalin gelinkeeda galab qura abaalkan gudaa waa idin gaaraaye iyadana ha garan waayinee geela igu siiya gari kama malaasnaan u fidhi geel la ii naqo intaad gaar isugu joogsataan goba'oda ii sheega haddii geela la isiin lahaa galabta hay raaco haddii kalese caawaba gudae godobayeelkeeda sida la sheegay cali dhuux geelii dhammaantii waa loo keenay wuxuuna kula soo noqday reerihoodii hase ahaatee 14 qodob ee gabaygu ka koobnaa 11 ka mida weeye inta aan idiin soo gudbiyey waana wareegaashii aanu la kulannay intii ay ka hayeen dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo